dhammaan dadweynaha halka isugu yimid maanta ceelkan iyo munaasabaddan waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa kambaniga ay hogaaminayso Faadumo Jaamac Ducaale oo ah qof muwaadilada oo dalka u dhalatay biyaha ay ku guuleysatay iyada tiimkeeda la shaqeynayaba iyadana mahad ballaaran baan u jeedinaynaa ciddii ka soo shaqeysay oo kale oo gacan ka siisayna waa u mahad celinaynaa aad bay ugu mahadsan yihiin waana u ducaynaynaa waxaan leenahay xaajada ilaahay caafimaad ha siiyo caafimaad sariixan marka hore ugu ducaynaynaa in ilaahay barakeeyo magaalada oonka ka jiray waxaan u manayaa sanadkii kale hore hadda ayaa waqtigeedii waa laga qaxay waxaana looga qaxay harraad baa looga qaxay anuu cergaaban joogay guriga soo horjeedaan ku yiri war xagee ka timaadeen markaas inaan baraman ka soo qaxnay waa ka naxay alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta biyaha aynu helay ilaahay baan ugu shukrinaqaynaa marlamaadna waxaan u hambalyeeynaynaa kambaniga qoday oo Faadumo hoggaanka u tahay iyo intii gacan ka geysatayba waa u mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan Faadumo uga rajaynaynaa in ilaahay caafimaad siiyo caafimaad sariixa siiyo wixii xanuunana ka dulqaado ilaahayna u barakeeyo shirkadda iyo kambaniga ay maanta halka ka bilowday waxaanu ka rajaynaynaa inta ay in ka sii badan baan kambaniga ka rajaynaynaa waayo hawl ballaaran baa wali hadhay biyo gelin baa hadhay waxa hadhay magaalada oo biyo gelin lagu sameeyo waxa oo dhan iyadana ka wada sugaynaa waana ugu mahadnaqaynaa maantana waa ugu ducaynaynaa ragga shirkadda u shaqeynaya ajnabiga ana iyagana Allah soo hadeeyo ilaahay ha soo hadeeyo xoogoodana ilaahay ha u barakeeyo insha Allah waxaan rajaynaynaa dhammaan deganna waxaan uga rajaynaynaa qofta iyaduna aad ugu dadaashay degan iyadana waa u mahadnaqaynaa waana ku soo dhaweynaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyo dad iyo dunyaba wixii ka qayb qaatay oo dhan waa u ducaynaynaa inaguna waxaan leenahay ilaahay naaficiisa hayna siiyo annaguna insha Allah waxaan ku daraynaa Faadumo Jaamac iyo kambaniga iyo degan oo runtii fikradda lahayd aad iyo aad baa loogu farxay dawladda Puntland qalabkan iyo markuu soo mareeyay madaxweynaha iyo dawladduba waxa ay maaragtay ula shaqeeyeen sidii uu ku soo gaari lahaa halkan si aad iyo aad u wanaagsan laana baahida ka jirtay baa la ogaa dadaalka Faadumo Jaamac la ogaa marka inay qalabkaas iyo gaadiidkaas halka yimaado dawladda oo dhan baa ku faraxsanayd ilaa madaxweynaha inaan la taaban karin oo cashuur dhaaf uu sameeyay oo yiri qalabkaasi hawl weyn buu inaga qaadayaa insha Allah hal baalkareeyo madaxweynahana uga mahad celinaynaa hawshaas Faadumo Jaamac iyo shirkadda iyo deganna waxaan leenahay Allah idin barakeeyo insha Allah taala ducada istaakana Allah inoo aqbalo insha Allah taala wixii dhibaato oo jiray oo faraha badnaa oo biyo la'aantu ay keentay oo kamid ahayd magaalada oo dhireen u baahan oo maxaan ku raahdaa hygiene-ka iyo nadaafadda u baahan in magaalada nadiif ay noqoto oo magaalo cagaar ay noqoto waxay naga xigay waxay ahayd biyo la'aantaas mar hadda insha Allah biyihii helay waa in dadku ay si wanaagsan ay uga faa'iideystaan haddii Ilaahay ka dhigo waa in lala shaqeeyaa dawladda iyo dadweynaha intaba waa insha Allah lala shaqeeyaa oo la soo dhaweeyaa si maxaan ku raahdaa uu hore ugu socdo kambanigu oo wixii la rabay aynu ka rabnay guud ahaan iyo gaar ahaanba si loo helo insha Allah taala waxaan filayaa hal ceel naguma filla ceelka labaad waa leeno bilaabaya insha Allah taala anana waa barakeynana insha Allah in ceelka labaadna sidaas oo kaleeto ilaahay uu guuleeyo waxa ugu muhiimsan waxa weey waa sarfeyga iyo in maaragtay si fiican loo sahmiyo meesha biyuhu ku jiraan marka sahankaas ay ku guuleysteen baan rajaynaynaa insha Allah taala ceelka kale saas oo kale aan u guuleysano isku sahan bay ahaayeen saan u malaynayo labada ceel iyo labada meelood intaba waxaan insha Allah rajaynaynaa in maanta ay waa cusub iyo xilli cusub ay bulshada reer Baramood ay maaragtay ay u dhalatay oo ay magaalada ku nagaanayaan oo magaalada ay soo camirayaan oo wadanka insha Allah taala wixii u baahan yahay insha Allah ay qaban doonaan haddii alla idmo annagana insha Allah dawlad ahaan waan la shaqeynaa waa garab istaageenaa wixii ay nooga baahdaanba insha Allah waan la fududeynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin suldaanka guud ee beelaha harti Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan mas'uulka ama maaragtay hormuudka bulshada reer Sanaag Faadumo Jaamac Ducaale oo ceelkan maanta aan arkayno biyihiisa ummadda ugu deeqday oo deefuraysa maanta insha Allah dhammaan ka soo qaybgalayaasha cid kasta wasiirka hawlaha guud oo isna inala jooga wasiirka dawladda wasaaradda hawlaha guud
dhammaan cid kasta mansabka ay ku joogto halkan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta sharaf noo ah dhammaantayo inaan maanta joogno ceelkii laga hirgeliyey magaalada Badhan eeriyada jaamacadda ceelkaasoo najaxay ilaahay mahadiis Badhanina ay aad ugu baahnayd oo u amanayd cidda fulisay hawshaasna waxaan leenahay mahad gaara iyo sharaf gaara iyo soo dhaweyn gaara bay naga mudan tahay waxaan leenahay inta badan waxaad ka heli doontaa Faadmooy bulshadaad ka heli doontaa waayo farxadda ay xalay habeen hore ay ku jiifeen iyo sida ay kugu ducaynayeen baanu ognahay waxaan rajaynaynaa maanta Badhani inay yeelatay ceelbiyood aan rajaynayno insha Allah wax badan inuu ka qabtiri doono waxaan kaleeto oo in badan aan u mahad celinaynaa intii ka soo hawl gashay iyo inta maaragtay qabanqaabadiisa iyo shaqadiisa iyo fulintiisaba leh waxaan u mahad celinaynaa suldaanka oo isaguna nagala soo qayb galay maanta oo waqtigeena soo siiyey waxaan leenahay jazaakallaahu khayr aad iyo aad baan intaasaan oranayaa sharaf iyo qurux iyo bay noo tahay waddada ceel daahir ceergaabo khamiistii dhoweyd shirkii aan galnay oo madaxweynuhu uu maaragtay noo shir guddoominayay madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday 6 bilood inuu Badhan ku soo gaarsiinayo waddada ceel daahir ceergaabo insha Allah isagana waa ka rajaynaynaa innaguna ka bulsho ahaan waxaynu rabnaa doorkeenna inaan qaadanno oo dadaal badan aan ka samayno sidii waddada iyo biyo ay isu gaari lahaayeen waxaan kale oo ummadda u sheegayaa maadaama aan ahay guddoonkii gobolka eeriyada jaamacadda dadka hunguraynaya oo yaan xoolo idinka gelin war wixiinu iyo idinkaga lumin eeriyada jaamacadda iska leh togaa wixii looga soo gudbo togaa haddii laga soo gudbo magaciisa la yidhaahdo boholgaradixeed ilaa iyo halka uu ku dhammaado wixii looga gudbo waa dan dadweyne weeye ama jaamacad ha noqoto ama airbood ha noqoto ama jeel ha noqoto ama riig ha noqoto ama ha noqoto qabuurihii iyo dadka maaragtay dhulkii lagu aasi jiray waa dan dadweyne weeye waxaan leeyahay bulshada oo u sheegayaa xoolihiinna ha iska gelinina degdeg baa looga hawlgelayaa waa la bannaynayaa ciddii wax u yaalliinna ha ka qaadato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu ilaah baa mahad iska leh na siiyey biyaha 200 mitir kaliya lagu gaadhay aanu haddana ka oomanayn waqti dheer mahadda ilaah baa iska leh marka hadda labaad waxaan u mahad celinaynaa xaajiyadda Faadmo Jaamac Ducaale oo aad ugu heelan horumarka iyo waxqabadka mantaqada iyo intii laga soo shaqaysay oo degan oo iyana hay'adda adeeso ka tirsan iyo hadday tahay dawladda Puntland haddii ay cashuur loo dhaaftay iyo hadday wax ka qabatayba intii wax ka gacan ka geysatay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazakallahu khayr ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro ummadda loo keenay oo shacabka codkeeda anoo ku hadlaaya waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu oon badan na soo maray harraad na soo maray magaaladayada sanad ka hor dadku ay ka guureen harraad dartiis magaalooyin kale ay u guureen ee aanu weynay wax biyo ah ay noqotay xataa waxaanu meelaanu ka soo gadanay ay weyday riigga hadaaftimo loo galay fayl habeen 4 habeen uu halka booyada biyo loo dirsadaa ay ku maqnaan jirtay aad iyo aad baa ilaahay aan uga mahad celinaynaa sida fudud ee biyaha aan ku helay iyo cidii gacanta ka geysatay waxaan bulshada leenahay innaga waxay noogu waajiba haddaan biyihii helay inaan dhaqaalaysano oo dhowranno oo ku tacabno oo maanitay lahaansho aan muujino waxaan inay tahay waxaynu leenahay oo lahaanshihii laynaga arko baan bulshada ku wacyigelinaynaa waxaanu kale oo aan halkan rabaa inaan uga faa'iidaysto hawlka madaala wali waa hogadii wax badan baa mandaqadu u baahan tahay wax badan bay mandaqadu u baahan tahay dekad baan u baahannahay dariiq baan u baahannahay hadda waxaan soo dhawaynayaa inaynu tallaabada step 2 aynu qaadno barnaamijka dariiqa waxaan bulshada codkeeda anoo ku hadlaya aan anigoo bulshada ka wakiila ballan qaadaynaa inaan bil walba bixino $5 oo aan ku saacidayno jidka in dariiqa naloogu hagaajo baanu ballan qaadaynaa
waxaanu bulshada ka codsanaynaa iyadoo ay maqlaysa ummadii hawsha qaban lahayd qaabili lahayd isu xilqaami lahayd ururin lahayd oo muslima oo islaama oo dadaalaysa oo volunteer in laga dhaxelo insha Allah waa laga helayaa